intaad qurux raadinaysid bal haddaad malakumudkaagii gacmahaaga ku doonato ka waran. Walahi dadka hadda dunida ku nool ee kalsoonidu ka dhamaatay mararka qaar qurux intay raadinayaan bay geeridooda gacmahooda ku doontaan oo geeri iibsadaan oo lacag ka bixiyaan. Gabadhaas aad u jeedaan waxaa la yiraahdaa Israa Karam, dalkaasi Masar bay u dhalatay, waxay 25 jir. Waxay is doonteen wiil ay is jeclaayeen oo soo doontay. Arooskoodana waxaa la xadiday inuu dhacayo 3 bisha 12 ee sanadkan, yani December. maalmahaas marka ay ku jirtay isu diyaarinta arooska bilo iyo maalmo iyo wiigag bay ku qaadataaba gabdhaha qaarkood, khaasatan gabdhaha Carabta. Arooska dhici doona bisha soo socotay 12aad 3 ilaa iyo hadda isu sii diyaarinaysay. Gabadhii waxay aaday meel oo ahaa ciyaadooyinkan la isku qurxiyo, meelahan yani isbitaalada yaryar ee private sida khaaska loo leeyahay ee sameeyay waxyaabahan la yiraahdo amaliyada tajmiilka, filarka dadka meelahan kaga shushmay indhaha hoostooda iyo meelahan ka durdura wajiga iyo faruryaha iyo. gabadhii isbitaal yar oo noocaas bay aaday, bal quruxda ka maqan maxay tahay Ilaahay baan idinku dheeriyay gabadhaas miyaan qurux badnayn. Wallahi kalsooni darradu waa dhibaato. gabadhii filar dhacay oo waqtigiisu dhamaaday oo wax ka qaldan yahay baa lagu soo duray. markii gabadhii la duray way xanuunsatay, isla markiiba xaalad waxa soo food saartay xanuun oo degdeg ah. gabadhii isbitaal baa loola cararay, waxay gashay koomo 3 bari. markay koomadii ku jirtay gabadhii kadib wayba dhimatayba. waxaa la raadiyay marka ninkii gabadha ku duray filarkan dhacay iyo waxyaabahan wax ka qaldan yihiin ee dhimashadeeda iyo xanuunkeeda sababta u ahaa. ninkii isla markiiba waxaa la ogaaday xisaabihiisa social media uu ku lahaayoo dhan horta inuu wada xiray Instagramkii, TikTokii, Facebookii, meel walba wuu wada banaday. xaruntii marka la tagayna waa la waayay, ninkii wuu cararay. dalka Masar kama bixin, dalka Masar unbuu ku dhex dhuumanaya gudihiisa ku jira, laakiin lama soo qabanin ilaa hadda gacan waa lagu soo dhigi laayahay. gabadhii bisha 12aad arooskeeda dhacay isu diyaarinaysayna intay qurux raadinaysay aakhiray u hoyatay de wax quruxoo ka maqaniba ma jirin. wallahi gabadha ma garanay anigu quruxda ka maqnayday raadinaysay. kalsooni darradu waa dhibaato. kulli qof walba xilliga uu Ilaahay u qoray unbuu dhimanaya. hadduu aroos galayo, hadduu aroos ku jira xataa malakumudku qofkan aroos buu gali yaqaanay ka qale iyo uu kaadi ma jirto. saacadaadu markay dhamaato waa lagu imanaya, waana lagu soo qabanaya. laakiin waxaa dhibaato ah qofku isagu gacantiisa hadduu sababsado waxaad adigu samaysay oo adigu sabab u tahay aad ku dhimatid, dhibaato iyo mashaakil weeyaan. midda kale intay dadka qaarkood qurux raadinayaan, dadka quruxda raadiya ama isqala ama isqurxiya ama jirkoodii sida ay u abuuran yihiin wax ka bedela, waxaa u badan dumarka qaarkood marka qurux intay raadinayaan horta way isfool xumayaan. qaar waxaad arkaysaa fool xumaaday, midabkoodii iska bedelay, wajigoodii bedelay, siday u abuurnaayeen oo dhan bedelay, indhihii, sunniyihii, kulli faruryaha, ilka meel kastoo jirkooda kamid waxbay ka bedelayaan. qaarkood marka masiibooyinkan oo kale la kulmaan dee masiibooyin ka daran, inay dhintaan, inay fool xumaadaan, inuu wajigu ka halaabo, inay cudurro ku dhacaan. sidii Ilaahay kugu abuuray inaad ku ahaatid oo ku joogtid wax ka wanaagsan ma jirto. Ilaahay baan idinku dhaariyay imka gabadhaas bal quruxda ka maqanay raadinaysay filarada isugu duraysa maxay ahayd. wardadaad tiin dadka meelahan iska durdura iyo faruryaha iyo ama aad ku fikirayso islahayd xataa aad isdurtid ka jooga. waan idin digaya anigu digniin, siduu Ilaahay kugu abuuray ku joog, sidaa doontid ba aha waad qurux badan tahay. dhulku kula go haddaad maqli jirtay waatana iyadoo video ilaa dhulka hana la goynin naxadin badana. maxaad samayn lahayd bal adigoo jid maraya gaarigaaga wata, faamilkaaguna waliba ay kula saaran yihiin, hal mar hadduu dhulku idin la go gow dhulkii baaba idin la qayba hal mar. 4 qof baa gaarigan saarnaa baa dhigay dhulka oo la go-ay. waa dalkaasi China. dadkii waxa ma soo gaarin, wax dhibaato weyn ma soo gaarin, inay naxeen iyo yani inay shoogeen ka sakow. dadka waa la soo badbaadiyay iyagoo nolol ba meesha laga soo saaray, laakiin de aad bay u naxeen. dhulkii un baa la go-ay hal mar. meesha marka waa meel laamidii un baa siday u socdeen la go-day dadkan. marka waxaa sababay baa la yidhi inuu dhulku go-o gaarigan iyo dadkii saarnaaba dhulka uu la go-o. tuumbooyin baa maraa dhulka hoostiisa biyo sida Soomaa, tuumbooyinka biyaha qaada. tuumbooyinkaasaa loo malaynayaa bal marka qaar ka mid ah inay ciladi ka timid oo inta yani dhulka qooyeen ama biyo ay soo muusayeen dee muddo dheer kadibna uu dadkan sidaas dhulka kula go-ay. ilaan meeshaas laamida hee dhisan, guri kuma dhisna, guryo xataa uma dhowo laamid highway buu dhex marayay gaadhigu, hal mar unbuu dhulka la go-ay. marka wax tafsiiroo kaloo loo hayaa ma jirto. ilaa hadda waxaa la sheegayaa in tuumbooyinka biyaha ee dhulka hoostiisa mara ay sababeen inuu gaadhigan dhulka la go-o. dadkii haddaba gaadhiga saarnaa iyagoo bad qabaa laga soo saaray, laakiin aad u naxsan dee oo shoogsan oo yaaban oo isla dhulku kula go unbay maqli jireen. malaha dhulkii kula go-dii baaba idinku dhaboobay. aqaalin dheerta dhulka kula go inay isku habaaraan. horta inagu Soomaali haddaan dhulka kula go baa qofka lagu yidhahdaa markuu dadka dhibo. waa qof baasoo habaar badan oo dhulka Ilaahay hala gooyay. alla yuhuudaan ku reyn lahaa dhulka la gooyay.
بريان اي baa soo baxday aan tiktok u fahmaa walaalayaal ifaham hadaa doonto aday ku taala. Assalaamu calaykum. maalmahan maan dhihi karaaba bil malaha waxa dhandee bishan waxaa ka socdo doodaas oo ku saabsan dad isku dayaya axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam inay qaar ka mid diidaan, inay inkiraan, inay si qaldan u daliishadaan, inay si qalada u micnayaan, iyo dad kale oo isku dayaya inay u jawaabaan oo dadka wax fahamsiiyaan. haddaba dadkaas wadada iska yeelyeelayaan waxaan aaminsanahay inay iska yeelyeelayaan. horta bini aadamku iska muran badan yahay, uu kani adag yahay, uu madax adag yahay. bini aadamku inuu murmo iyo inuu wax dafiro iyo wuxuu og yahay inuu diido waxaas waaba howlihiisa. dunidan maanta aynu saaranahay waxaa inagula nool dad bini aadan inagoo kala adee ilaahay abuuray oo ilaahii abuurayba inkirayba. soomaydaan arag dad odhanaya wax diin haba ma haysto, ilaahay ma jiro, anuu waan iska abuurmay, waan iska dhiman doonaa, badaha iyo buuraha iyo barigu iyo hawada iyo cirka dhulku iska samaysmeen, way iska baabi'i doonaan, ilaahayba ma jiro. allihii dhannaa ee abuuray ee irsaaqaya dad dafiray oo inkirsan ilaahayba jiritaankiisa hadda dunidan inagula nool. maalmahan waxaa murmaya marka oo doodaya dad Soomaaliyeed, rag iyo dumar bay isugu jiraan, gabdho iyo niman waaweyn oo caqli la dee oo wax walba kala garanaya oo kasta isaga yeelyeelay. anu waxaan aaminsanahay 100% dadkaas inay iska yeelyeelayaan. baa waxay aaminsan yihiin inay ku doodayaan in la yiri dumarku yani in diinta islaamku dumarka ay liiday ama diintu ay dumarka ka eexatay, xadiiska naaqisaatul aqli wa diin bay soo qaadanayaan, si qaldan bayna u daliishanayaan. qaarkood waxay leeyihiin culimada wahaabiyada sidaa tiri, wahaabiyada waxay yiraahdeen, wahaabiyadu waxay aaminsan yihiin xadiiskiiba inuu rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam ama uu ka sugnaaday, xataa way inkirsan yihiin. dadkaas marka aanu lama hadlayaba, waxaan la hadlayaa dadkan kale isku dayay inay u jawaabaan. dad fara badan baa u jawaabay oo aad u fara badan oo isku dayay bal inay dadka wax u sharxaan oo wax fahamsiiyaan oo wax ka dhaadhiciyaan. dadkaas hadaba iska yeelyeelayaan, wadadooda iska yeelyeelaya. qofka hadduu wax shaki ka galo oo uu fahmi waayo ama aayad quraan uu fahmi waayo macnaheeda, ama uu yani yiraahdo aayadaas saas maxay u tiri, aayada kale saas ay ka hor imanaysa, aayadani maxay tahay, qofku laba heli karaya hadduu qof wax fahamsan yahay oo cilmi leh inuu baaro wixii baxthi fara badan oo sameeyo. يا علماء waxay ka yiraahdeen ijmaaca culimadu wuxuu ka qabo tafsiirka aayadan kale waxa lagu fasiray xadiiskan waxaan u fahmi laayahay. isagoo marka cilmi ku filan wax ku soo baadha haduuna lahayn ama xataa si kasto cilmi u leeyahay haduu fahmi waayo, dadka de islaamka culimay leeyihiin Soomaa culimo loo noqdo oo wax la su'aalaha jirta, culimaday su'aali karaan. hadaba dadka inay wax baadhaan ma rabaan, inay culimadu wax su'aalaan ma rabaan. culimadu haday u jawaabtana xataa waxaan arkay sheekh ka hadlaya hadda ka hor gabadh nabiga calayhi salaatu wasalaam oo diinta ka baxday oo qaldan oo xad gudubtay oo de ridowdayba. waxaan arkay marka dad sheekhaasi gabadha hadal uu kula hadlayay intay soo qaadaan, hadda gabdho social media TikTok ka hadlay soo kordhigayo oo ekaysiinay yani sida inuu gabdhahan u jawaabayo kale waa hadal bari hore ah. marka dadkaas haday isku dayaan inay wax baadhaan way baari karaan, haday isku dayaan inay culimada weydiiyaan way weydiin karaan, haday isku dayaan inay wax fahmaan way fahmi karaan, way iska yeelyeelayaan. marka waa dad iska yeelyeelayo kas iyo kibir bay ka tahay waxan iyo يعني كني أضيق مدح أضيق مرن كده بني آدم كل يقاني بني آدم وحا كمذا وإلهي وكأبو ريبة بني آدم كسيدي سبقينه مرمى يضاد مدح أضيق هذا البطن ريب بني إسرائيل بكمذا بني آدم أنتو إلهي فرعون يبدي كسوبة بادية سيدا مركي لو سوبة بادية كده من آيار دي بإسكعاب ذين با يبالن كلا لقى لك بحين بني آدم مركا وحا كمذا كوان كدودي إلهي بمجرو يا كو أبو روان سكا أبو رميدي rabbiga abuuray arsaaqayba kuwa inkirsan oo kula soo hortaagan oo kula dooday ilaahayba ma jira dunida ku nool oo bini aadamka kamida. marka dadkan u jawaabayo ma bad iska daysaanba, sababtoo ah dadkaas su'aalahooda iyo idinka jawaabihiina iyo doodiina iyo xadiiskan lagu murmayo naaqisaatul aqli wa diin ee sida qaldan loo adeegsanayo baa wuxuu nagu noqdayba de zaaid buu noogu batay, buu nagu farabatay. marka dadkaas haday ugu talagalaan inay wax soo baaraan way soo baari karaan, haday ugu talagalaan inay culimada weydiiyaan way weydiin karaan, haday ugu talagalaan inay si sax wax u fahmaan way fahmi karaan. horta qofku ilaahay ugu talagalay inuu wax fahmaa dhagto rabbi ugu talagalay waanada iyo tadkirada inay qaadataa sidaas ay tahay inay culimadu wax ka fahmaan ma rabaan, inay wax fahmaan ma doonayaanba. marka intay sidana la yiri ma sida laga moodin ma sidana ay ahayd doodan iyo murankan faraha badan ma wanaagsanee ma la iskaga aamuso dadkaas aan u soo ku talin lahaa.